والله مقلا سمح أنا قلت كل اللي واحد بدن كما هذا وحين كهذا وكليه وحويان أضيق عن ماشى كان سنة سقالها إنه مدلها مركب كل ترتو وحن سلامة يرى له هذا واسك جود اسموغل أيام سلامة يا تلا بيسو وحن يدين شيء يا نجا وحن جيت كاسو يرى له هو جيت كأنك وحن كان سنة نن أنصحوني أو اسكو حركة ترك يجيت كاسكو حركة أنكو كالصون هاي ما أهنن أن متقنا حركة أوكيني ما أهنن متقنا أن قعنت اللي سكسو قبتي يجعل مدنا معها وأنن جيت كان أنفعه ترك أنكو حركة نن كستانا نن كاسو كلينا كنت لقيت دوليا مركا وانا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واس عبد قليف واسكي باشا كومده واسكا باشا كومده ما شاء الله أديات بدمات سنتهين دمان dadka meesha isugu yimid gabdhaha sharafta badan suldaankeenna guud suldaan cabdisamed suldaanka beesha samawadal maanta xafladan iskale een iskugu imaanay aqoon-yahanada culimada odayaasha kale dhaqanka sagaalayaasha ama waasyada lasoo meesha soo istaagay dhammaantiin waan idin salaami waxaan idinku salaami salaamta islaamka assalaamu calaykum maanta runtii waa maalin weyn waa maalin farxadeed waa maalin taariikh leh waa maalin magac leh oo annaga haddaan saban wadal nahay magac nagu yeelan doonto maasha allah meeshan waxaa laga akhriyay taariikhdii iyo siday wax ahaayeen hal maadaan rabaa inaan ku daro markii aan dad ahayn ee magac iyo jiritaan iyo waxtar inoogu dambaysay ninkii yaqaanaa yaqaana waa markii aan saddexda webi ee geeska afrika ku taalla saddexdu baan ka telinayn waa markaan magaca lahayn ee jaah adag aan la baxneed garanaysaan waa markii dhibaato kasta oo dhacda xalkeeda naloogu imaan jiray alxamdulilaahi rabbialcaalamiin maanta waxaan soo celinnay taariikhdii jirtay waxaan soo celinnay geedkii samawadal uu ku midaysnaa waxaan soo celinnay geedkii nolosha iyo ciziga iyo sharafta samawadal ay ku jirtaan soo celin dadka laga raba inay garab istaagaan oy geedkaa ilaashadaan oo sidii kii hore aan siyaasad iyo waxaan loo baahnayn iyo khuraafaad laga gelinninna intiinnan fadhida wey war ma isku ognahay geedkaa inaan ilaashanno ma isku ognahay geedkaa gabadh iyo wiilba inaan ilaashanno oon la shaqayno oon taageerno ma isku ognahay waxaan maqhraati ka ah inaad gamcaha wada taagteen qodobkaa weeye qodobka kale labaad sideeda ugaaskaa aan maanta doorannay ama boqorkaa aan doorannay dhowr shardi oo shardiyada ka mid a haddii laga helo waa la beddeli hadduu xanuunsado oo cid badbaadisiiya cid baanatiya cid diin saartiya cid isbitaal geysiya cid wadata la waayo waa la beddeli hadduu dhintana haddee wuuba dhintay waa la beddeli hadduu shaqaynba waayo uu howlgab noqdona haddee waa la beddeli shuruudiin mid ka mid ah ood wada og tihiin oo ninna laga qarinaynin baa geedkii ku timid iyaday in middaa haysato oo odaygii xanuunsaday oo hadda laga sheekaynayay in iridda laga celinhay
oo laga sheekaynayo in uusan maaragtay waxbaba fahmayn oo uu rafaculqalam yahay haddana niman siyaasiyiina intay u imaadeen oo ku ciyaareen yay ku burburiyeen geedka korkiisa dadkii u asalka ahaa ee u xigayna way ka ilaashan waayeen weliba kamaanaan aamusina waan la hadalnay waxaan ku nidhahdeen rayaalow geedkan wuu inoo dhexeeyaa idinkaana budugeeda geedkan ilaaliya way ilaalin waayeen si ula kacay ooga tageen sidaa awgeed geedkii waan noolaynay waan soo qaadannay geed samawadal oo caalami ah oon isku raacsannahay oo la yaqaano asalna bahasha asal u ah ambidan iyo goday ree axmed baa ugaas noo ree samane oo ree aadan gowdhaa noo ah dhicis muusey ka soo bilaabatay muuse khalaf dhicis baa ku xigay way soo socotay haddee say u soo socotay meeshanna way soo gaadhay oo raggii wadee keenay raggii maanta la sheegaayee ahay waa mahadsantihiin geedkii wuu noolaaday maanta waa la isugu yimid xadhiggaa laga jaray soomaali iyo ogaadeen iyo dadka deriska nala ah waxaan u sheegaynaa haddaan nahay samawadal geedkaannagii wakaa ninkii noo baahda geedkanu nagala soo xidhiidhi tulamogaa noogu sokeeya walaalahaanna kale ogaadeen walaalahaanna soomaaliyeed islaamkoo dhan geedkaasaan u idmannay waxaan u idmannay suldaan maxamed suldaan cabdi ilaahay idamkiina wuu ku fillaan doonaa geedkaa waan u ducaynayna ilaahay idamkii balaayoo dhan allaha ka kori waraamiin dhaha balaayoo dhan allaha ka kori khayr dhammaantiina allaha ku soo shubo cadaalad allaha ka dhigo carabkiisa cadaalad allaha ka dhigo cidhiidhi iyo cadow iyo wax walba allaha ka qabto kor allaha ka dhigo kii noo taliya oo na anfaca allaha ka dhigo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waad arkaysaan ugaaskii baa isoo ag istaagay waa mahadsantihiin guulaystaan idin leehay guulaystaan idin leehay guulaystaan idin leehay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugaaska beesha kuumadow aad iyo aad baad u mahadsan waxaa kaloo asna aan soo dhowaynaynaa ugaaska beesha kablalax ugaas mawlid fadlan soo dhowow الله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد دمان وان سلامي باشا سموضل عقاشادي صلاة دينتا وضياشا علماء ضليارادا هويينكا قبلها دمان وان إذن سلامي سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت كدب aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex qodob aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa waxaan rabaa aniga inaan saddex qodob ka hadlo qodobka koowaad waxaan rabaa inaan la hadlo suldaanka guud ee beesha samawadal ayaan rabaa inaan la hadlo qodobka labaadna waxaan rabaa inaan la hadlo soomaali weynta hadday noqon lahayd ogaadeen iyo hadday noqon lahayd ummadda Gaarisa County degan qodobka saddexaadna waxaan rabaa nimanka hadda la doortay ee ugaasiyada xilkooda sida ay ku gudan lahaayeen cadaaladda ku jirto ayagana waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobka koowaad waxaan rabaa inaan ka bilaabo suldaanka guud ee beesha Samawada suldaan maxamed suldaan cabdisamed suldaanow horta xil culus ayaa lagu dhiibay shareecada islaamka annaga dad islaam baan nahay shareecada islaamka xilka waxay ka qabto waxaa weeye qof weliba waa uu og yahay suldaanow cadaalad ayaa laga rabaa suldaanow inaad nagu hogaamiso diinta islaamka waxa ay ka qabto xukunka iyo ummadda loo khidmeeyo ayaan rabnaa inaad nagu hogaamiso suldaanow samawadal waa 10 dab 10kaa dab ayaad adiga ka tahay mas'uul 10kaa dab ayaad u tahay suldaan 10kaa dab inaad sinto aad isku si u xil qabato xilkoodii isku si aad oola macbilaado isku si aad u wada wado isku si aad dantooda aad u ilaaliso
adigoo cuskanaya qodobka shareecada islaamka ay ka qabto xukunka intaa waxaan leeyahay kuma sii daahay waqtigaa kulul ugaaska ayaan leeyahay waxaan leeyahay ogaadeen iyo soomaalida Garissa County degan waxaan u malaynaa geedkan waxaa ka sheekeeyey taariikhdiisa wiilka abtigaan u ahay cabdiqani ayaa ka sheekeeyey waxaa weeye dhaqan way geedkan siyaasad ma aha waa dhaqanka rasmiga ah ee beesha Samawadal ay maanta boqolkiiba 90 ay isku raacsan tahay iyo 5 waxaan rabnaa nin allaale ninkii reerkan dan ka soo gasho inuu yimaado geedkaas isku xiro beesha Samawadal taana waxaan rabaa inaan u sheego Soomaalida iyo ogaadeenka iyo ummadda Garissa County nala degan cid kastaba ay noqotoba intaana waxaan leeyahay baaqaas Garissa County waxaan leeyahay nimanka la doorte aniga waxaan markaan runtii la sheego nin walba wax uu takhasus ku yahay hawsha dhaqanka ayaan takhasus ku ahay waxaan rabaa inaan idin sheego nimankiinan hadda sagaalayaasha ah ee reerka loo soo doortay laga bilaabo saacadan xilka beesha Samawadal ayaa idin fuule xilsi shakhsiyaad ka taga xilsi beel hoose ka taga waxaa weeye dad mas'uuliin baa tihiin beela ayaad matashaan haddee diyaargarooba diinta allana waxa lagu xukumo مثل أواس كباشا ري محمد جود أواس محمد سلل أواس كباشا ري محمد وأواس كباشا ري محمد سمول الأواس كيس جود واكم سودو أواس فضلا صورة قابي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمان تلك هالكان اسكوغو يمد marka koowaad Allah mahad iska leh alxamdulillah waxaan rabaa intaan kalimaadka aan dhihin marka koowaad inaan u yeero laba chairman oo chairmanisha reer Maxamed ah wax yar soo joogso chairman Yusuf iyo chairman Maxamuud soo joogso marka koowaad waxaan rabaa mid kale inaan u yeero ugaas Axmed جل وسوجو سو قلون نصدروا يا ما شاء الله ما زلت إن شاء odayaasha beesha Samawadal iyo dumarka aad ma santihiin waxaan helhayaa 9 sano 9 sano geedka kale oo jiray oo Samawadal lagu yeeray ma tagin mana ka soo muuqanin sababa jirta marka sababta jirta waxa way geedka qaabkii oo talada ugu socota tala gurcanay ahayd marka sidaas darteed waxaad ogtihiin geedka waxa ku dhacay oqowaay oqaday Maxamed Samawadal ku dhacday faragelinti Maxamed Samawadal oo lagu dulmiyaa ku dhacday markaas ay Cabdullah Ibrahim soo gaartay Ibrahim inuu macnaha asagana dadkii ku jiray maalin xabad looga bixiyo marka oqowadaas dhacday inaad ogaatiin waan rab waxa kale jirta maalintii koowaad oo nasalaani tagaynay Suldaan Maxamed Suldaan Cabdi Samed meeshaas Samawadal uu ku dhanaa maantana uu ku idil yahay ogaas guuleed hadaad Samawadal qoos walba toban oo jirta Samawadal uu ku idil yahay marka baan qaadanayna waxa way ogaada marka koowaad reer Maxamed laba qoos way labada qoos mid uu keensada saak sagaalihiisa midna wadada ku soo jira insha Allah weeman mida ogaada
waxaan rabaa wax walba ood qabanayso inaad u qabato si lilaahi ah ilaahay kugu og yahay dulmi laguma aha reer ama qoys ama shaksi laakiin waxaa la rabaa maamulkii samabadal oo haadaan ka dhicahaayo in la toosiyo maamulkaas waxaanan ku toosin karnaa ma aha inay shaksi loo jeedo ama qabiil iyo qof lagu doolahayo siyaasadda gaaris waxay ka dhexaysaa inta degan gaari islaamba aad ka rabta inaad kuura ka raadsato marka inaad tolkaada ku duusho ood midna ku istaagto midna aad garab qabato middaas waxaa macquul ahaan way raallina kama noqonayno waxaan rabaa geedkan maanta tillaabaduu qaadahay waatan waa xarag jar laakiin tillaabaduu qaadi doono insha allah samawada dhammaan qof walba oo samawada leh wuu ku qanci doonaa talada ayada ah waxaana rabaa inaan loola shaqeeyo si dhab ah anigoo ugaaska maxamed samawadala suldaan maxamed waxaan oola shaqaynhayaa silikal alyalaab waanan idiin sheegay 9 sano geedkaa ma tegin kanna waxaan u taaganahay har iyo habeen waxaan u taagan yahay inaan samawadal ku mideeyo kulana shaqeeyo insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabsalaan fadlan soo dhaqaaq aniga dadka microfonka ku gama miihi shaqadayda waa la garanayaa dhammaan waa idiin salaamay suldaanka ugaasiinta madaxda gabdhaheenna dhallinyaradeenna iyo tolkeenna guud markaa ku din waad mahadsantihiin geed socodkan aan ku jirno midaan wada leenahay way inta hadda geedka lagu soo magacaabadana iyo inta ka horreysay waxaan leenahay xilka allaha idin fududeeyo waa howl toleed isdir bay u baahan tahay in dabad laga riixo ma aha in lagu baraarujiyo ma aha in lagu xasuusiyo ma aha marka waa howl aan wada leenahay qof kastoo hawshan ku jiro cid kaale ma laha marka tolka ha laisku wado wanaagga ha laga shaqeeyo intaan baan leeyahay waad mahadsantihin aad u mahadsantihin shukran shukran waxaan lahaa tolka hatambueeyo oo tolkiisa waa uu u shaqeeyey nin siyaasi nala jooga waxaan rabaa inuu laba kelimad dhaho markaan duqowdaan u gudbin rabaa duqowda intaan u gudbin oo ninkaa siyaasi u gudbin ugaas aan maanta la calay masaar haynin nala joogo geedkii hore ee burbura ka mid aha aniga aan isku dhignahay ayaa nala joogaa waxaan rabaa inuu soo istaago ugaas bilow ugaas malu beesha shantalis waxaan rabaa maanta lama calay masaar hayo aniga asaga waa calay masaar ma lihin dhalinyarada odayaasha culammada waan idin salaamay macal ilaahay kulan hofsaaya kulli waan idin salaamay bacdiyeed waxaan ku soo yeeri doonaa jaamaniyaha reer shantalis jaamaka guud iyo midka weyn mustafaarax musta cabdi iyo saalax bal waxaan rabaa inay idin arkaan bal soo joogsatiin markaa bal soo joogsada saddexdaana soo joogsada soo joogsada odayaasha reer shantalis aw odayaas guud odayaashaas waa chairman guud iyo chairmanka labaad iyo odayaasha reer shantalis madaxda ka meeshan geedka nafteeda soo qaban qaadinayeen bay ka mid yihiin anigu waxaan ahay ogaaska reer shantalis geedkanna in badan maalinka la asaasay maanta dhexdooda dadkii ka soo shaqaynaya baan nahay hadda ugaas maxamed reer maxamed wuxuu yidhaahday geedka nafsi waxaa ku dhacay buu yidhi ilaahay ku weyn yahay reer maxamed reer shantalisaa ka daran anigu waxaan ahay ninka 10 qoys la yidhaahda inta kale way qaadeen mishaar adi mishaar nool laguma siinayo ilaa saacaddan lagu joogo tii ayay aan ku samray oo geedka ugu hoggaansanay oo ummadda ay ogeey nafsigaas oo hadda kiisha maxamed keygaa ka daran ma fahanta maanta intaas ummaddan ugaas guuleeda chairmanna iyo ugaas maxamed iyo intii soo dhaca saaxiibiin baan nahayn wixii jira kulli waan ogsoonahay
gumaadka lagu gumaaday waxay ka bilaabatay doorashadii hore ee cali burow loo oleynay yaan diiday ani inaan samoodo la kala gumaado midna la yidhaahdo waa anta midna waa noo meeshaasaa liiga aasay ilaa saacadan ayada anigu go-aankaygu amay waayeen in intii jeebka lii gashado si liigu diro tolkii dhexdiisa samooda waan diide mar waxaa jirta la yidhi 1 milyan baan siinaynaa keena bas waaye tolkaygaan oo waxeshe hadda waxaa idin sheegayaa معلمين بدن با كسو ورنتay ilaa taariikh baa laga soo waramay ilaa afsama majlisi dowlad waxa laga soo waramay boqortooyadii hadda ani intaas iyada wax ka badan idin ma sheegay waxaan la hadli ugaaskeena maxamed absameed iyo inta hadda ku soo biirte ee geedka cusuban waxaan joognaa umaleyn amri qaalib waan dhaafne marka waxay koodin shay amri qaalib maxamed absameed noogu weyn وان دبا سعودان انا سيغيسا نو موقتا انت ايو نوغاس فري با نلسي فري امر يعني غالب صار نحره فري با نلسي انت اي waxaan jeclahay ogaasada ku had soo biireeyo ogaaska guudba suudaanka guud inaan ka faa'iideysano waqtiga noo saaray chairmanka kulli lillahi samadan ugu warramo aan cadaalad samayno faa'iido qasaar inta ay bonus nagasi amri bonus السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا محمد سلل وأيد سنهي سلطانو قد شابان تاغنهي قرب كابان نهي سمودا لغا محيغو أنك أكو بخرني سمودا أكو بخرني حاجدا يودانه قود أو حيركا سكل سوني عبسل آني وقبصو واسا أجل هاسو دعو ريد محمود أناي واسخلون وحول إمادو مقعي مول حوو أنو إمتلا ديارة نوية وبالله التوفيق شكرا وفاما MCA waxaana la joogaa chairmankii dhalinyarada samawdal waaberi maxamed inshaalla tolkaada gacanta taag hal meesha taagan tahay maxamed inshaalla nala joogaa waa chairmanka dhalinyarada waaberi samawdal aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaan la gaarin intaa nin abwaana ayaa iga codsaday inuu maaragtay afarto xabad tuuro abwaan axmed bashiir awey أحمد سوفي بشير أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق أبو أحمد بشير سمود الله وحان كل شيء أرنتنا ما أنت هذا جرته وأبشر واي وحان كسر حسوستينك هذا يري وحان لديه جري جاهدك جاهدك مركنا لديه جري عدن هذا ما أنت عن قرطة كنبا وحي أهد بقر وعن إذن شيء هذا أرنتن إذن ليه وأبشر مدلباتن يسدح سنة لقد جوه يعني ندك فعاد كلو ويديبان صوت عديدان كان وحن ويدينيه عدن محاكو عد واي وضع لا تالليه محاي أيضا دحداد شيء يسقطه محو أنك دحدان عدو يسقونه ويوقص له وحيقول نيو رجابة قبطان محا وحاس ما هذا كفكري حسابه وحبلا بو يغسو شيكي وحيقول عدن انا اسرع دو مربطا ماشي رجايني انا يقارتو مربطا وانين سموضل عبد الله أبوكر آذن ري أحمد سمنا أحمد ري آذن قول وإن بقر لقد ديو والله بين إذن مشيغة هي وقادة هدين نكا بقر لقد ديو لقنا الدنبايو أسنأو عدالة سمايو عدو عده هو يكسر نحبه وحنكسو حسوستا هذا منكي يري جاهدك بانا لديه جيري جاء هذا مركين لديه جري أيها وقاس هايين وأنا مكد دهان عن إذا كأت كانوا ضد كان إذا كأت كيسين أنت سواء أنت رجيتكم وأبشر وقاس السمودر مدة كله نمو حاضرة إدنا عن صاحبنا هاي
oo la dhaho cali ibraahim shoobo loo yaqaano annaga saaxiibayaashiisna ay dhahaan goojamey maanta meeshan ma joogo laakiin hadduu joogi lahay lacalla kelimad yar uu dhihi lahayn rabaa inaan sheego kelimaddaas waxay tahay alif waa qoraana ilaaha amar iska leh ilaa iyo ebedanaay ilaa aabaa ana adduunka intuu ahaa ugaasnimadeenna guud waxaa lahaa aadan gool waanan wada ayidsaneen ogaadeenka arlada ku amar taaglaynahay absame ugu wada ogaa ugaasow aadan gool ugaasnimadeenna guud adiga baan kugu ogeyna inteed gees aadan gool war ardaaga maxaad u geys maxaad ooda oga turta eegatada oo manay maxaad adablaha u geysa maxaa dhacay aadan gool war ugaas liiska ma ahaado ab loo soo sheegto iyo abtir loo soo akriyo waxay leedahay awow war ugaasow aadan gool ab loo soo sheegto iyo abtir loo soo akriyo awow hore baad laheede maxaa dhacay aadan gool ugaasnimadeyna guud inteed gees aadan gool ugaasow aadan gool ab loo soo sheegto iyo abtir loo soo akriyo waxaad noo tahay awow adduunka intay ka dhiman ugaaskahay aadan gool intaas aadan gool baan kula dardaarmahayaa waxaa jirtaa ninkan dad baa waxay soo gateen gudumo inay geedka salka ka gooyaan ninkan salkaba in laga gooyo nimankaasaan u sheegay inuu guuleed go'aynin gabayaa laga galaayo ilaahay guulo waayo guuleed waa gelsan weyn haddaad soo gadato gudun inaad gooso aad rabtana guntiisa garabkaasa guuleedsaa kuma go'ay odayaal gabadho dhammaantood wada gadayan oo wada waxgaran haddaan geed isugu keenna haddii aan hore uga fahin meeshaad naga soo gashaba waryaa waan garani wayne intaad naga soo gashaday guuleedsaa kuma go'ay adiga maa naga go'aysa adaa goobweyne ku xig taasna intaasaan kaga hari assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu samodalow geedkan waa abshire ogaada abshir raha shukran salaanto laba erayaad ku tiro waqtigana waa cariiri laba daqiiqad dadkaa badan ilaa 6 ruux aa ii dhiman fadlan soo istaag xaaji bare kolkaada salaam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعوا وانا سلام علينا مقدس عن كل دعية. وعن سلام يا وقاس كجود سمو وضل وقاس محمد عبد السمد. فالدين قفر وحن كل سلام يا مقامك وماشي كفر ديو. هرت الله إذا بركيو. هذا أثر كيسون نقشتين وفي عنتهن سيدا لشينا أبشروا sida la sheegayna aan si fiican oo shaqeyno aan marka wax yar baan dhahayaa horta baasha markii hore reecad simadka ree adagowlka anaga siinay anaga lahayn laakiin iska maana siinay waan laga qaaday iyagana wixii naga qaaday Allah ka nabad geliyo anaga waxaan lagu yiri nin carabkan meesha ka madow oo awliya ka dhex degan ya abshir qoyskii yiri khayr Allah siiyo hadda iska cafinay habeenimo soo saaray riti oo way keeneen hadda waa maqlayseen afaroodii ma la sheegay moota wixii ka horreeyay anaga lahayn laakiin dib kuma qabno waan ogol lahay waa ogaaskii turmugo waaye ma aha ogaas hadda barbare ma aha sida uu Cabdiqani sheegayna ninku Abu Kalaadan buu ahaa waxaan idin sheegay marka hadda ka hor yaa wadaadda quraan akhrinay ila Cabdiqani baan mareynaya anigu kuwa dadka ugu wadaasay waa Cabdiqani markaas waxa la yiri نبى أيمد وحين نبى وحرب أنتو خميس وقت نقول وحنا يقانو وحرب علماء اللي قدروا عن أخرياء عن قرآن كأخرياء ربابو ما حتى قانا بل بقصي يقولوا ولا قانا ورقولوا ولا كذا وعلي عطروا علم هاي إنه يسكبح مركزي ورقولوا ولا أنا خسرنا قرآنك أنا يا توكي علماء هاي خسرنا نبي بداية وروح عمل شيء سبح على بناك الفريسي قبل سوى ده وحي قبل qofkii cuntada waday baa asaga ka soo bilaabay markaas wuxuu mooday wadaadkiiba inuu kan yahay cuntadii waa dhigay kuwiina xagee fadhiyaan cuntadii way sugu hayaan baasha marka sidaasay marka hore meesha ku aaday dadkii culimada u weeyeen baa ninkan ag dhigay haddana culimadii baa lagu soo celiyey ilaahay inuu nageeyo faatixada mara aan si fiican oo shaqeyno aad baan mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan soo dhawaynayaa waxaan soo dhawaynayaa chairmanka geedkii Abubakar Aadan oo nooga imaaday Masalaani chairman Cabdinaasir soo dhawow tolka ka salaam laba erey ka ku dhig taale hada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخيار تعالى كان سكور ما تدمان سلطان كجود بشي سموذل سلطان محمد سلطان عبدي سمت سلطان محمود وباشا سموذل وبخردين أنو سلطان كجود ونقضه وسنتا اللحدة كسوق قيب قشبيرها كلا ددوان سموذل كايمادين جيمياشا جود أو سموذل مدحدة دمان أرنتا سوق الغالسة أما جوق أما مغناو دمر كان نقالق شرفت له دلن يرابا دمان أخيار تماجن كسوق قيب قشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan jeclaystay wixii lagu hadlayo haleeshiin ilaahay leeyahay waaye walaalayaal kala meeraan barine ilaahay nabad nagu bariisiye allahaas inaan xusno oo ilaahayga mahadda u sugnaatay inaan ku shukrino dhammaanteen marnaba meel u fadhawa waxaa kale waxaa la yidhi meel laiskugu imaaday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo lagu xusin inkastoo sheekh cabdiqani noo horreeyey khayr allaha siiyo waxaan rabnaa nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan ku sallino ninkiiba 10 jeer allahuma salli calaa nabiyina maxamed wa saxbihi wasalam allahuma salli calaa maxamed waxba nagama goyno intaas aan dhahno ajir iyo xasanaad ayaan ka helaynaa intaa kadib hadafkaan meeshaan iskugu imaanay waa mid aan la soo qabanqaabiyey wakhti dheer oo hore oo taariikhdii 10 lagu soo sameeyey masalaani hindiso badan loo soo galay rag wuxuu ku hindiso ugu gaaraa hindisiya ayaa duqi loo soo gelbiyey suldaankeenna gurigiisa gaaris waa kaan naga soo horjeeda guriga aanu ogaano oo la jeedada meeshan duqi wuxuu ahaa inta ka hor sagaalaha bokoraadeen dhan ahaan uga sunno ahaa samoodalna wuxuu ka dhacaay sagaale laakiin suldaan gudu noqda gurigiisa wuxuu noqda gaaris in la keeno gurigii waa kan la keenay guri barakaysan allah ka dhigo intaa kadib waxaan mahad aad iyo aad aan ugu celini dadkii arrimaha soo abaabushay ugaas guleed ugaas malu oo geedka samabadal ay sheegaan in aad loogu ceelo celkii idinka baxay ugaas guleed oo idinka baxa umalaya inta kale oo arrintan ka soo shaqaysana waad mahadsantihiin suldaanka guud waxaan leeyahay nin soo talan jiray waxba looma warramo laakiin hilmaan hadal kuma jiro waxaan aqliyari kuu geynin eexa amal kuu geynin tolkaada waa samawadal wuu ku xanuunsaday kolkii geedkii lagaa saaray adoo 2 nin oo kale aad buu ku xanuunsaday arrintaas arrinaan iloobayno ma aha arrinaan iloobi karnona ma aha samawadalow dhammaantaada aad iyo aad iyo aad boqolkiiba aad u mahadsan tahay haddaad soo boqoratay maxamed absamed oo boqor ka dhigtay annagana waa idinla qaadne soo saas maaha nin yar iyo nin weynba waa mahadsantihiin dadka muxuu ahay u keena meeshan oo muxuu ahay la keena ugaasiinta inagana waa mahadsantihiin waxaan rabnaa geedka si caadi in loola shaqeeyo aniga waxaa ahay chairmanka guud oo meesha bokoraayan haddii sagaala ilaahay ii qadarona waan ahaan doon haddii ilaahay ii qadarona ma ahaan dooni saasaa iigana ku gaabantaa waxaa kaloo idin sheegi warkaan waa dhammaade geedkan kala taga wuxuu ku kala taga salaad egi la aadaamo soo lama aqimay markay isu imaadeen sagaalayaashii oy fadhiisteen ayagoo hadal wadaanaa salaad la gaari waxaa lee salaada ha la aqimo salaadada maxaa lagu qatay قد قامت الصلاة سموه ماشي قد قامت الصلاة وعلى يرادي قد قامت قلاف كذا عميساس قلاف حقه كإمارة قلاف دنبنا من نقطع إن شاء الله بإذن الله الكريم أرنت سأواني السين قول يقرب بوحان الله نسيو سلطان كجرين الله كدو السلام عليكم waxaan malayn aqoon saas liima soo lahaa malayn anigni waxaan ahay reesin gaaylo maxaa Cabdalla baan ahay magacayga waxa la yiraahdaa Yuusuf Bashiir
waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo waxaan u malaynay sagaalayaashii meeshan hadda la tirinayay maxaa cabdalla ninkana sagaalay weli meesha lagama dhihin hadalkayga masiib badan inta amaan raba inaan taxriif ka bixiyo waxaan u sheegayaa suldaanka geedkiisa annaga geedka suldaanoo kama maqlin dhismadiisa iyo qalqaalihiisa iyo qaabkiisoo dhan baan yaan wadnay waan kula joognaa sagaalahaynina maanta meeshan lagama taajaynin sababtay ay toona shalay waxaan u fadhinay oo sagaalaha dhisanay guddi buu dhisanay shalay guddi buu shalay dhisanay talaan ku maqannahay khilaaf diidaan nahay samawalow saasaa ogaani suldaan waan ku maqannahay talaan ku maqannahay khilaafaan iska ilaalinaynaa geed kale waan ku soo biiri doonnaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu beesha xasan aadan soo istaaga suldaanka intuu jeesada insaa u jeesada beesha xasan aadan oo maantana sagaalooda keensadeen haddana hadal ku matalra musey siyaadow dalka salaam u mahad celi geed suldaan hadal markaada leenahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ماشي السلام عليكم ninkan amada taagan waxaa waaye waa xasan aadan waa siyaati loola boosh waaye tolkayga meeji wuxuu idmade waan qaadanay arrintuu la imaadnay ugaaska suldaanka waan qaadanay sagaalada waan la imaadnay tolkii saa ha ogaado tolkii saa ha ogaado tolkii saa ha ogaado waxaa kale oo kastoo aan qoonsanayna oo hadalka samawalow waxaan qoonsanayna aan sheegayna aan sheegaya magaca la dhahay ilaaba koo cumar suuri waxaa jiray abakar aanan qoonsanay hadalka waa qoonsanay ha ku celinina hayaanigu celinaa markii la yiraa ilaaba ku dhaha aadaneekii la soo gal waa soo gala ayagana arrintaa ka noqda samawalow ka noqda arrintaasi warkale waa ka baa salaamu calaykum كف كف سليمان عبد الله ربع انت استاجا سليمان عبد الله سليمان عبد الله شو دوله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان والسلام يا باش سمودل واسيدة سلادينتا علماء قبلها دليرة دمانتي والسلام يا أنا مثل باش سليمان عبد الله وشو دوين يا واسكنا يا دمان با وين تبع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم بركة يا ربنا وياه باش حسن عبد الكريم وليش ننسى السجع وليش باش حسن عبد الكريم حسن عبد الكريم انت السجع وقول باش حسن عبد الكريم انت السجع تركينا سلامة باش حسن عبد الكريم السجع ليش حسن عبد الكريم؟ تجد واحد تجد السلام عليكم تفضل السلام عليكم waxaan u malaynaa aan asaasnay faataxadan u marno inuu geedkan ku guulaysano inuu ilaahay ka dhigo geedkan ilaahu guul ka dhig ilaahu guul ka dhig faatax ani waxaan malaynaa sagaalhay ugu jooga xasan cabdikariin waana ninka ugu geysan oo carar waaye cabdikariin sagaalhiis waa ninka ugu gegeysan oo inuu carara diiday oo axmed cabdisamed ku daba suuxe walaalayaal samooda waxaad ogaanaysiin geedkan khayaano aan ka ogaano geedkan khayaanaha laga ogaado geedkan hala ilaaliyo walaalnimaha lagu ilaaliyo ilaahay qolkiisa lagu ilaaliyo waxba yaa muslim loo dhimin walaalayaal waxaad ogaanaysiin ummadda kale waxaan u sheega gaar noga nool ugaas kale ma qabo samoodan ugaaska waa kan ugaas maxamed cabdisamed wey ugaas kale been wey waxba kama jiro asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بايش بها يا سلطان كولا أي هكذا وبس كولا هاي كسوي ساقين يا بالمسجين أبي كان ربنا ينطلق سلامه salaanay salaamu calaykum samawada salaamu calaykum
annaga waxaan rabnaa inaan sheegno suldaan maxamed cabdisamed geedkiisa waan adiinsannahay annagoo baha waan ayiinsannahay suldaankeenana waan keysannay inkastoo ugaas guuleed uu gadaal naga dhigay annaga curud baannahay inuuna laga bilaabo annaga eheedaan filaynaa ugaas annaga diyaar baan nahay ugaaskeenana waa shafeec waana ku soo heshiinne wabilaahi towfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باشا سموضل وان إذن سلامة سلام كل يلاب تكسر قوتي ما أنت ومالين فرحداد وحان سلام هايا وغاسكا محمد عبد السمد وهريو سقالياش عصوب وان سلام هاي كويسي هرين وقيت كسي هاين واد سلامنتهين هذا الكائن هذا الهربالو بقو اسكا قابنيا واسكن وباش ريل كجيرة وري محمد من كذا سقالهن وصوص صعبا ولا سوقي وانا كسو تشانين انت هرتيدا بوسكا سقالهي يو منكي لبادي بانا سي حاجين هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله شكرا رحمة الله وبركاته بالويت السماوضري ما شاء الله دمان أغاسكا سقالياشا علمادا وضياشا قبلها شرفت بدن ويوينكا سماوضر لمانتي متجو إمد مغمبا وسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب نحوغا كفتن بان هذا الكودر يا beelaha sama wadal maanta i shafray ogaasnimo ugu shafray anigu abakor aadan baanahay ninka in garanaynayo abakor aadan baanahay sharaftan maanta aan meeshan ku taaganahay ilaaha sabab u sama wadal baa sabab u hadduusa sama wadal sharaftaa i siinin cid kale kama doonto xowlahana kama helen cawdaqna kama helen samadala waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay ilaah baa mudama hadda intaa kadib anigu waxaan la dardaarmayaa nimanka sagaalayaasha ah ee geedkan joogaan oo maanta la keenay walaalayaalow cadaalad darrada waxaa la rabaa in wax laga barto waxaan meeshaan u tubannahay oo meeshaan aan iskugu imaannay ogaas cusub nagu qasbay waa cadaalad darro ka timid geedkii hore maanta indhaha nagula hayaa tooshaa nagu shida haddii geedka hore raadkiisa martaan waa ceeb qabiil wuxuu noqonayaa marka wada dhitigoobay ay isdhaamin waxaana loo baahan yahay samawadal inaad wax ka beddeshaan guuleedow kii horena jeemanaad ka ahayd kana jeeman baa ka tahay waxaan rabnaa waddo wanaagsan ogaas guuleedow boqorkiiow waxaan rabnaa waddo toosan oo ilaahay samawadal ku mideeya meeshan maanta aad taagannahay ayaan rabnaa marka waa lii cirbinayaa hadallo kala ii qorsheedna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qadaa cunu doonadakmanutaasi